Ismaamulka qaran wuxuu u baahan yahay bulsho qaran ahaan u abaabulan oo u midaysan danteeda guud. Kama hirgeli karo dal bulshadiisu qabiil qabiil u kala abaabulan tahay sida dalkeenno kale. Haddaba biyidhaca halgankeennu waa in aan ka gudubnaa qabiilooyin kala abaabulan oo aan u gudubnaa bulsho hal ah oo qaran ahaan u abaabulan si cadaalad, sinaan iyo horumar loo gaaro intaba. Tani waa masalada qabyaaladeed ee ay hoggaanka horkaca ama horkacay bulshada Soomaaliyeed ku fashilmeen inay xal u helaan. Ilaa xal loo helo masaladan qabyaaladeed, xasilooni kama dhalanayso Soomaaliya. Nidaamka qabiil ee soo jireenka ah ee jilbiyada hoose ee qabiilku leeyihiin hoggaan dhaqameed kaasoo ka madax bannaan hoggaanada kale waa nidaam waqtigiisu dhammaaday oo khasaaro maahine faa'iido u soo jiidaynin bulshada Soomaaliyeed. Marka hore, wax horumar ah ma laha maadaama waxyaalaha daruuriga ah sida iskoolaadka, isbitaallada, jidadka, difaac midaysan iyo waxyaalaha la midka ah ee guud aysan jiraynin. Marka labaad, adduunku wuu ka gudbay nidaamyada qabiil wuxuuna guud ahaan qaatay nidaam qaran oo dal walbaa leeyahay dowlad dhexe oo maamusha danaha dalka. Soomaaliya waxba lama qaybsan karto adduun qaran ahaan u shaqeeya iyadoo bulshadeedu ku dhaqmayso nidaamka qabiil ee runtii la dhihi karo gobolkiisu wuu dhacay. Nidaamka qabiil iyo kan qaran waa laba nidaam oo kala duwan. Waxyaalaha muuqda oo ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah hoggaanka, qofka, bulshada iyo xeerka. Nidaamka qabiil waxaa wax hoggaamiya hoggaan dhaqameed. Qofku waa qof ka tirsan qabiilka. Bulshadu waa qabiilo kala abaabulan oo qabiil walba gaarkiisa u leeyahay hoggaan iyo abaabul u gaar ah. Xeerkuna waa xeerka qabiilka lagu hago. Nidaamka qaran waxaa hoggaamiya madaxweyne ama ra'iisul wasaare dalba siyaasaddu qaato. Qofku waa waddani u dhashay dalka oo ka tirsan bulshada qaranka. Bulshadu waa bulsho qaran, xeerkuna waa xeer qaran. Markii la qaatay nidaamka qaran ama aan ka dhaxalnay gumaystaha, waxaa loo baahnaa in hoggaan dhaqameedka lagu bedelo madaxweyne ama hoggaan qaran. Ka tirsanaha qabiil lagu bedelo waddani ka tirsan bulshada qaranka. Qabiilooyinka lagu bedelo bulsho qaran oo mid ah. Xeerka qabiilna lagu bedelo xeer qaran. Ayaan darro dhammaan dowladaha iyo ururada siyaasadeed ee hadda jira iyo kuwii ka horreeyaba way ku guuldaraysteen inay isbeddelkan ka hirgeliyaan dalka. Waxaa hirgalay laakiin in nidaamka qabiil ee soo jireenka ah iyo kan qaran aan ka qaadanay gumaystiga ama aan ka dhaxalnay gumaystaha in la isku qaso oo ay abuuranto cudurkii ugu weynaa ama uu abuurmo cudurkii ugu xumaa ee Soomaalida hela kaasoo ah qabyaalad. Dalka wuxuu cagta saaray waddadii burburka markii ay curatay qabyaaladdu. Welina wuxuu ku taagan yahay waddadaa burburka kamana soo kabsan. Qabyaaladdu waa siyaasad qabiil ku dhisan oo ku taagan 3 tiir oo kala ah hoggaan siyaasadeed oo qabiil ku shaqeeya, waddani qabiil ku shaqeeya oo taageera hoggaanka qabiilka ku shaqeeya, iyo abaabul siyaasadeed oo qabiil ku dhisan oo isku xira hoggaanka qabiil iyo taageeraha hoggaamiyaha qabiil. Is-abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan ee isku xira siyaasiga iyo waddaniga qabiiliga ah
ayaa saldhig u ah qabyaaladda. waxaa aas-aaskeeda lahaa ururadii siyaasadeed ee abuurmay xorriyadda ka hor, maadaama badankood qabiil ku salaysnaayeen. waxaana sii xoojiyey dowladihii iyo jabhadihii ka dambeeyey xisbiyada. isla markii xorriyadda la qaatay, waxaa bilowday in wasiirnimada iyo xubinnimada baarlamaanka iyo talada dalka loogu tartamo qabiil. kadibna waxaa xigay in siyaasiyiinta qabiilka ku shaqeeya ama qabiiliga ah inay abaabulaan qabiiladooda oo qabiil loogu tartamo maamulkii dalka. maadaama qabiil ku guulaystay hoggaanka dalka uusan jirin, muddo badanna colaad lagu jiray, welina aan xal la helin oo heshiis guud aan la gaarin weli. runtii waxaan ku soconnaa in lagu noqdo nidaamkii qabiilka oo qarannimada iyo dowladda dhexe intaba ay ciribtirmaan. is-abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan wuxuu waxyeeleeyey danta guud ee bulshada Soomaaliyeed, waayo qabiil walba dan gaar ah ayuu u sameeyey ama u yeelay. maadaama uu qabiilooyinkii ka dhigay kuwo kala dan duwan, qaranku ma helin taageerada shacbigiisa, shacbiguna ma helin waxqabadka qarankiisa. hogaamiyaha qaranka qabiilkiisa ayaa taageera, ee bulshada qaranku ma taageerto. isaguna qabiilkiisa inuu u adeego ayuu sheegtaa, walow wax uusan u qaban qabiilkiisa hadduusan qaran ahaan wax ugu qabanaynin, ee uma adeego bulshada qaranka. cadaalad darro iyo sinaan la'aan ayay taasi abuurtay, taasoo bulshada ka dhigtay bulsho tartanta ee aan wada shaqayn, cadow isku ah ee aan iskaashan. jiritaanka siyaasiyiinta qabiiliga ah wuxuu ku xiran yahay kala qaybsanaanta qabiil ee bulshada qaranka. tartanka ay ugu jiraan hogaamiyaashaasi hoggaanka dalka wuxuu sii xoojiyaa is-abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan. waxay mar kasta alifaan qaabab cusub oo ku salaysan is-abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan si ay u sii jiraan, bulshaduna u sii kala qaybsanaato. waxaa ka mid ah dowlad qabiil ku dhisan, oo waa soo aragnay dowladdii loogu talagalay bulshadoo dhan inay wada yeelato in qabiil yeeshaan soo aragnay. jabhada qabiil ku dhisan, waan soo aragnay jabhado loogu talagalay inay qaladaadka dowladda saxaan oo iyagiina laga dhigay wax qabiil leeyahay. awood qaybsi qabiil oo ku dhisan 4.5. waxaan aragnaa maanta oo jira in dowladdii laga dhigay wax la qaybsado, intii ay noqon lahayd wixii loogu talagalay oo wax u adeega dalka. waxaana la yidhi qabiil ha lagu qaybsado 4.5. waxaa jira gobolaysi qabiil oo la leeyahay gobol walba waxaa iskale qabiilka, ama qabiil baa iska leh, iyadoo qabiilo gaara awood la siinaayo, kuwa ugu xoog badan ama lisleeha ugu xoog badan yihiin, kuwa kalena xaqoodii la dudsiinayo. waxaa jira kala go'itaan qabiil. waxaa jira federalism qabiil, in dadka Soomaaliyeed qabiil federaal looga dhigo si awooddooda loo wiiqo ama awooddooda ay u wiiqanto, iyo wixii la mid ah. waxay marka siyaasiyiintanu mar kastaba waxay dadka ka dhaadhiciyaan siyaasiyiintan in fikradahani yihiin fikradaha keliya ee dowlad lagu dhisi karo, nabad waartana lagu soo celin karo ama lagu dhalin karo. waxaan ognahay laakiin oo dhab ah in ay dowlad ku dhisi karin nidaamyadan ama fikradahan, nabadna ku keeni karin, waayo waa fikradihii qabiil ee ay markii horeba ku fashiliyeen nabaddii dalka, qarannimadii iyo dowladnimadii dhammaan ay ku fashiliyeen. waxa keliya ee laga dhaxli karo fikradahan waa ciribtirka qarannimada iyo midnimada siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed. hoggaanka waxaa abuura bulshada, isla markaana wacyigeeda iyo fikirkeeda siyaasadeed ayaa keeni kara colaad ama nabadgelyo, cadaalad ama cadaalad darro, horumar ama dib u dhac, maamul wanaag
ama maamul xumo. taa micnaheedu waxay tahay dadka waa xubinta ugu muhiimsan dalka. haddaba si dowlad fiican loo helo waa in la helaa hoggaan fiican. si hoggaan fiican loo helo waa inaan noqonnaa bulsho fiican. si aan bulsho fiican u noqonno waa inaan yeelanaa fikir qaran oo aan ka gudbnaa fikirka qabiil. maadaama fikirka siyaasadeed ee bulshadeennu yahay mid qabiili ah, waxaa taageerada dadka hela hoggaan qabiili ah oo abuuray kala qaybsanaan iyo colaad aan dhammaan, isla markaana keenay dhibaato joogto ah oo dalka iyo dadkaba saamaysa. hoggaanka dalkeennu waxgal marnaba ma noqon maadaama aan lagu taageerin oo lagu dooran aqoon iyo karti, balse lagu doorto qabiil iyo qolada uu yahay. waxgalla'aanta hoggaanka ayaa sabab u ah hoos u dhaca siyaasadeed ee fashiliyey dowladdii dhexe iyo in dalku ahaado dowlad la'aan muddo sannado badan ah. qabyaaladdu waa sababta ka dambaysa fashilka ku yimid qarnimada dalka, waana caqabadda koowaad ee hortaagan soo celinta dowladdii dhexe ee dalka. kadib sannado badan oo colaad iyo xasilooni la'aan ah oo dadka iyo dalku ku sugan yihiin halis, waxaan ku soconnaa in lagu noqdo jufajufadii hoose ee loo qaabaysnaa dowladda dhexe ka hor iyo intaana gumaysiga imaan. khatar aad u weyn ayay ku tahay jiritaanka dadka Soomaaliyeed in wakhtigan casriga ah dib loogu celiyo nidaamkii qabiil iyo jufajufadii loo kala abaabulnaa gumaysiga ka hor, waayo suurtagal ma aha in bulshadu danteeda guud ilaashato, adduunkana wax la qaybsato iyadoo ku dhaqmaysa nidaam qabiil. sidoo kale khatar ayay ku tahay jiritaanka dadka Soomaaliyeed in qabyaalad ay sii jirto, waayo suurtagal ma aha in ay colaadda iyo kala qaybsanaanta ka baxdo oo soo ceshato dowlad dhexe oo u adeegta iyadoo qabyaaladi jirto. sidaa daraaddeed waa in guud ahaan la ciribtiraa qabyaaladda si dalka Soomaaliyeed iyo dadkaba loo badbaadiyo. sida kor ku xusan oo aan soo sheegay, qabyaaladdu waxay ka abuurantay isku darka ama isku qaska nidaamka qaran ee leh dowladda dhexe ee aan ka dhaxalnay gumaysiga, dalkana ka hirgalay 1960kii, iyo nidaamka qabiil ee soo jireenka ah ee bulshadu ku dhaqmaysay gumaysiga ka hor. qabyaaladda waxaa adeegsada siyaasiyiinta qabiiliga ah si ay uga faa'iidaystaan kala qaybsanaanta bulshada oo u gaaraan danahooda gaarka ah. haddaba si aan u ciribtirna qabyaaladda waa inaan marka hore ciribtirnaa guud ahaan siyaasadda qabiilka ku dhisan oo dib u habayn siyaasadeed isku samaynaa haddaan nahay dadka Soomaaliyeed. si siyaasadda qabiilka ku dhisan loo ciribtiro waa in la mamnuucaa is-abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan. taas waa tallaabada hore ee loo baahan in la qaado, waana inay dadku bilaabaan inay isku abaabulaan qaran ahaan. waa in bulshada Soomaaliyeed beddeshaa fikirkeeda siyaasadeed si ay qaran ahaan isugu abaabusho. isla markaana waa in xeer cusub oo bulshada u suurtogeliya inay qaran ahaan isu maamusho la dhigtaa ama la dejiyaa. taa micnaheedu waxay tahay waa inuu dhacaa isbeddel bulsho oo buuxa. tallaabada koowaad ee isbeddelka bulsho waa in la beddelo fikirka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan eena soo gaarsiiya halka maanta aan joogno. waxaa la isu keen tusay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed inaan nahay qabiilooyin kala duwan oo kala dan ah oo mid walbaa wakiil ka yahay danihiisa gaarka ah. fikirkan qaldan ayaa sabab u ah kala qaybsanaanta bulshada ee sababtay in talada dalku gacanta u gasho hogaamiyeyaal qabyaalad ku shaqeeya oo ka faa'iidaysta kala qaybsanaanta dadka. waa inaan fikirkan ku beddelnaa fikirka saxda ah
oo ah inaan nahay bulsho qaran ah oo isku dan ah oo leh dan guud jiritaankeeduna ku xiran yahay inay u midoodo danteeda guud. Tallaabada labaad waa in la beddelo is-abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan. Is-abaabul siyaasadeed waa mid ka dhexeeya bulsho isku dan ah oo baahi u qabta inay kartideeda midayso si ay danaha guud u ilaashato. Fikirka qabiiliga ah dartii, is-abaabulkeenna siyaasadeed wuxuu ku salaysan yahay qabiil. Taana waxay keentay in awooddeenna loo kala qaybiyo dana qabiil oo gaar ah iyadoo la dayacayo danta guud. Waxaan nahay bulsho qaran ah oo dan guud wadaagta. Waxaana jiritaankeennu ku xiran yahay inaan qaran ahaan isu abaabulno oo dantaa guud wada ilaashanno. Is-abaabulka siyaasadeed ee qarannimada ku dhisan wuxuu u baahan yahay dib u habayn in lagu sameeyo bulshada qaranka. Looma baahna wax cusub in la abuuro, waayo qaranku wuxuu u qaabaysan yahay heer qaran, heer gobol, heer degmo, heer tuulo iyo heer miyi. Degmada ayaa aasaas u ah abaabulka qaran. Dowladduna waa madaxii ugu korreeyey. Degmadu waa meesha waddanigu danihiisa ka fushado sida deegaan, nabadgelyo, shaqo, iskoolaad, isbitaallo, biyo, koronto iyo waxyaalaha la midka ah ee daruuriga u ah qofka. Degmadu waxay ka kooban tahay magaalada koowaad ama degmada, tuulooyinka hoos yimaada iyo miyiga ku xeeran tuulooyinka iyo degmada. Shacbiga ku nool degmo kasta oo dalka ka mid ah waa inay si dhab ah isu abaabulaan si aasaaska qaranka loo xoojiyo marka hore, kadibna inaan u gudubno heer gobol iyo mid qaran. Taa micnaheedu waxay tahay degmo adag haddaan la dhisin oo degmada la aas-aasin oo aasaaska loo dhigin qaranka, suurtagal ma aha in dowladu jirto ama qaranka inuu xoogaysto, waayo aasaaskii ayaa daciif ah. Waa inaan abuurnaa xisbiyo siyaasadeed oo kooban oo ulajeeddadoodu tahay in waddanigu ka qayb qaato jihaynta siyaasadda dalka, isla markaana sida ugu habboon ee dalka loo jihayn karo wakhti walba xisbiyadaasu ay wakiil ka noqdaan. Si ay bulshada Soomaaliyeed u noqoto bulsho si buuxda qaran ahaan isugu maamusha oo dib ugu noqon qabyaalad mar dambe, isla markaana u noqoto bulsho hesha cadaalad, sinaan iyo horumar buuxa, waa in la dhigto xeer qaran. Haddaba waa in xeer laga soo saaraa arrimo badan sida in si joogto ah loo kobciyo wacyiga bulshada qaranka iyadoo la barayo dhibaatada qabyaaladda iyo faa'iidada midnimada bulshada qaranka. Abaabulka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan waa in sharci laga soo saaraa. Musuqmaasuqa iyo sinaan la'aanta qabiil waa in sharci adag laga soo saaraa. Waddaniga Soomaaliyeed ama ka tirsanaha bulshada qaranka waa inuu degi karaa, ganacsi ka samayn karaa, ku noolaan karaa meel kasta oo dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ka mid ah. Weligeed saas bay ahaan jirtay, arrintaana waa in aad loo xoojiyaa. Qaranka waa inuu mas-uul ka noqdaa daryeelka waddaniga ama ka tirsanaha bulshada qaranka. Waana inay noqoto sharci la geliyo xeerka inuu helo guryeyn, shaqo, ama uu ganacsi furan karo, waxbarasho, caafimaad, nabadgelyo iyo wax kasta oo daruuri u ah noloshiisa. Marka uu dhammaystirmo isbeddelkan bulsho, qabyaaladdu way ciribtirmaysaa, waxaana jiri doona xeer qaran, hoggaan qaran, ka tirsane bulshada qaranka iyo bulsho qaran ah oo u abaabulan danteeda guud.